jeclaaday gabadhii ayuu u tegay wuxuuna ku yidhi abbaa waan ku jeclahay. markaasay ku tiri jecelkaadi jeceshahay sideen ku ogaan karaa? balse nasiib xumo gabadhii wiilkii ayaa la soo booday. wax kastoo adiga aad jeceshahay ayaan kugu tusi karaa. ayadoo sheekadii meeshaas marayso ayaa gabadhii waxay iska soo jartay orod hooyada u tag waxaana ku tidhaahdaa hooyo waxaan u baahanaha wadnaheeda ii soo gooy ii keen kadibna waxaan aqbali doonaa jacaylkaada. hay ayuu ku yidhi. wiilkii waa bisla fariidile wuxuu ogyahay hooyadiis inaysan waxba u diidaynin. wuu soo orday wuxuuna yimid hooyadii markii uu yimid kadib wuxuu ku yidhi hooyo gabadhii aan jeclahay maantaan la kulmay waxayna igu xujaysay inaan wadnahaada u geeyo. hooyadii ayaa ku tiri hooyo ma hubtaa haddii aad wadnahayga u geysid inay gabadhaasi ku yeeli doonto? balse wiilkii ayaa si dhiiranaan iyo kalsooni inay ku jirto u jeedo wuxuu ku yidhi haa hooyo waa yeeli doontaa hooyo macane ii bixi wadnahaada. balse hooyadii ayaa waxay soo qabatay midi waxayna ku tiri oo hooyo wiilkeediioo la baxay. walahi waa murug. balse wiilkii ayaa waxa uu goostay wadnihii hooyadii. markii uu goosto hooyadiina sidii ayay ku nafbaxday. laakiin wuxuu soo qaaday wadnihii oo uu la soo orday. markii uu la soo orday intuu hooyadii uu ka soo tegay iyadoo meyda intuunan gaarin gabadhii uu jeclaay ayuu dhex ku kufay. balse wadnihii ayaa ilaahay ka hadlasiiyey oo wuxuu yidhi hooyo wax miyaa ku gaaray? waynaan waalidkeen uga fikirnaa siday nooga fikiraan. waynaan jeclaanaa sidan maaragtay ee noo jecel yihiin. wiilkii uu qaaday wadnihii wuxuuna u geeyey saaxiibtiisii wuxuuna ku yidhi hoo iga qabo waa kan wadnihii hooyadiis asigoo gacanta sidan ugu wado. balse gabadhii ayaa ku tiri doqon yahow waalani ma nin hooyadiisii wadnaha ka soo jaray ayaa naftiga ku aaminaa. waana qof kasta su-aasha isweydiinaya. hooyadiisna meeshaasuu ku waayay jacaylkiina meeshaas ayuu ku waayay.